waxaynu ognahay in badan oo inaga ina ka mid yihiin oo galabta halkaan fadhida ama ina ka maqanba oo aynu ka dharagsannahay dhacdadii foosha xumayd ee ka dhacday magaalada Garowe habeenkii Isniintii la soo dhaafay ee ahayd wixii loogu magac daray bandhig faneed wixii meeshaas ka dhacay iyo qaabka ay u labisnaayeen dadkii barnaamijkaas watay iyo intii bahwadaagta kula ahayd aniga oo aan kala qaadaynin qolo gaarna farta ku mudaynin waxay ahayd arrin munkar ah oo aan indhaha laga qarsan karaynin dhagahana aan laga furaysan karnin lagana aamusi karnin haddaba culumadii iyo indheergaradkii magaalada joogay waa ka hadleen waajibkoodina way ka guteen allah tabaaraka wa tacaala ha ka abaalmariyo miisaankooda xasanaadkana ugu siyaadiyo dunuubtooda tii waalkana allah ku dhaafo haddaba innaga ka dumar ahaan jaanibkeena ayaa dhiman waana arrinta waxaan laynoo ka baahan yahay sidii arrintaas akhlaaq xumada ah oo fuxshiga xambaarsan aynu uga dhedheli lahayn maadaama aynu nahay dad muslimiin ah dhalinyarada rag iyo dumarba dad marka la rabo in la baabiyo kayaankooda waxaa laga soo galaa dhalinyarada hadday dad firfircooni iyo nashaad leh oo diintooda difaacay ay yihiin agtooda qor lagama jabsan karo ama markay iska yihiin macna ma leh dowladdaas waa baaba'da dhalinyaro iyadoo inkuna sida isu dhaama waxa ay haray qolyaha fanka fanaaniinta intana waa weyn waa ognahay dowladda maxaa siyaad bare markay jirtay imisa kooxood ayaa xamar ka jiray waa bari iftin kooxda madaxtooyada horse aaway maxaa ka haray kulli soo ma teginin hadda waxaa la rabaa in laga fogaado wax walba oo ilaahay subxaanahu wa tacaala caragelin kara hadda markaynu ka hadalno dhacdada habeenkii dhawata u dambaysay waad ogtihiin qaabka looga labisnaa meesha dadkiina arkay gabdhaha iyo raggu inkastoo la kala darnaa qaabkii loo labisnaa waad arkayseen qaabka markiiba waxa loo soo gudbinayaa waa dhallinyaradeenni waxa meesha ku baaba'aya akhlaaqdooda ka baxaysaa waa dhallinyaradeenni munkarka intaa laga haddayna inagoo u wadnaa inaan wax ka qabanin laa shaka inuu albaabada inuu ka soo geliyo aynu gaari doono mar ayna waxba ka qaban karin haddaba inagoo isku duuban oo dumarkii magaalada matalayna intayna galabta halkaa ilaahay u qadarin in badanna ayna ka maqan tahay anugu hadalka waan ku dheerada laakiin waxaan kusoo koobaya aynu masalada ka hadalno maanta kaliya ayay noqonin kii Isniintii dhacay ku koobnaan mid kuwa kale haday doonaan soo socda kuwa kale haday doonaan nin macna hore loo qabtay waxa oo dhan baan hawsadayno difaac uga qaadan lahay inagoo ilaahay ugu dhawaanayna ikhlaasna ilaahay ka baryayna diyaarsan kalmad laakiin haddii aan hoos ugu daadego arrimaha kale iyaga waxaan isleeyahay waxa dabroodana maaha waxa ku egno maaha waa wax muddo dheer soo socday oo istaray haatanna waxaa macnaha dhacday tajruubo waxa weeyaan cid kasta oo wax ku hawlan marka ay rabaan waxooda inay tijaabiyaan heerkii laga rabay inuu ku gaariyo in kale tijaabay qaadaan sida imtixaanaadka tijaabo loo qaado marka tani aniga waxay ila muuqataa waa nooc tijaabo ah waxbayna horu dhacota horena waa u jirtay tijaabadaas qaabka daran kuwa ku fulayahayna kama dhigo kuwa saameyn xun ku reebanayahayna kama dhigo waxaan ilaahay ka baryaynaa meesheeda in ilaahay ku joojiyo inta ku hawlana iimaanka ilaahay ku sugo waa wiilasheeni waa gabdhaheeni waa maxay tooyeen haldoorkeeni baa ka buuxa hadda fahamka bay wax walba ka ahaadeen qofku waxa hadduu u fahamsan yahay inay tahay wax la wanaagsan oo wax ka istafiidayo qalbigu ma qaybsano qalbigeena wax wanaagsan la hesho marka waxa weeyaan marka ugu horeysa waxaan la hadlayaa dadka la sheegayo oo ama kuwa hore u jiray ha ahaadeen ama kuwa haatan soo kordhay ha ahaadeen ama kuwa onbooro jidka kusoo jira ha ahaadeene dadka inay anshax xumo la banbaxaan oo fasaad muujisadaan dadka ku hawlan walaayaa wiilasheeda iyo gabdhaha iyagii baa tihiin guryaha iyagii baa ka timaadeen iyagaan u soo noqonaysaan nagama baxdaan waxaad yeeshaan
إلهي إيمانك هيدو كسو نفتي نميسانا حساب تضيبه نقضة وحا أدلقتان والله صبر وحساب حسابتنا والله الله أقدر بعدين واحد كترتان إذن لو ونعكسية هاي إيو إن أي تهي إن هلكا كتوجسان ربنا توبر العدسان نفتينا إيو كي والدكين إيو كي مجتمعات كسو جيدانا أيضا بلا أسو جيدين أهنتا كدلالة waxaan filayaa reer Puntland ama Soomaaliya ama gabdhaha Soomaaliyeed badanaba intii muddo ahayd Xalimo Cali Biyood waxay u ololeynaysay horumarinta haweenka in badan waxaan jeclaa mar waxbarashada gabdhaha mar siyaasadda inay ka qayb galaan ma aha inaan u ordayay ama u ololeynay aniga iyo macaygaba inay gabdhuhu isqaawiyaan inay gabdhuhu mukar sameeyaan inay gabdhuhu fasahaadaan waxaan u orday waxay inay gabdhuhu cadaalad helaan inay gabdhuhu aqoon yeeshaan inay gabdhuhu talada dalka wax ku yeeshaan si aan u gaarno horumar oo dalna budoon oo maaragtay akhlaaqiyan iyo diiniyan iyo maadiyan ba u dhisan oo horumarsan bay horta ujeedadaan u ordaynay nama farax gelinayso inay gabdhaha Soomaaliyeed sameeyaan iyagoo qaqaawan ama tintoodii ama jirkoodii ama maaragtay rag isu soo ekaysiyo isu soo shabaayado la ogeeyay wixii aayad iyo xadiis aha culimadan u deynayay iyadoo laakiin la ogyahay inay nacaladan tahay gabadhii nin isu ekaysisay ninkii naag isku shabaanay uu nacaladan yahay anaga nama farax gelinayso manaha halkii aan u soconay maaha meesha aan doonaynay oo gabdhaha Soomaaliyeed ama wadankeena ama horumarkeena ama dawladnimadeenu meeshay ku jirtay maaha in mukar iyo lala yimaado dhibaato in jirkeena gabadhu soo bandhigto maaha in ay mataqaana samayso music iyo waxaan raali ilaahay ka ahayn ma aha waxaan doonaynaa sidiina gabdho u xijaaban oo asturan oo dharkii loogu tala galay qaba oo aanay qoortood iyo madaxood iyo jirkood iyo lugahoodu banaanayn inay shaqeeyaan ka kirayso wax xalaala dawladda Puntland anigu shaqaaleedan ka mid ahay waxaan leeyahay amniga waxa way amni darrada ka qayb qaadanaysa arrinkaani hore dhulkeena loogama aqoonin waa laga yaabaa in kooxdeena iyo maaragtay wacyigelin iyo waxa adu kale waxaan oo kale inaga wax inagu cusub weey wax Puntland ku cusub weey waxaan garaw hore u aqoon weey ma doonayno wixii jiray baan aan badoonayn already waxa way waxaan danta dalka iyo diinta ahayn ma doonayno dawladda iyadana waxa laga yaabaa inay isdhahaan ninkii maanta hor istaaga oo yiraahdo waxaan naga daaya wuxuu ka socdaa alhebla iyo ummadda ku kala kana lagu oranaya kana lagu oranaya ma ahan kitaabka quraanka abad madeen dalka iyo diintaas iyo dadkaas aad u dhaarateen kitaabkii aad madeen karu sheega ilaahay kaga baqa marna yeeysan dhicin inaad qof bil aadana ku raali gelisid wax xaraana sababtoo waxa way fidnadu inaga dhanba inagu wada dhacaysa kii dhiga kaliya haleeli mayso dad juhula maanta ma jiro dadku cilmi buu wada leeyahay waxa laga yaabaa dadkaas maaragtay sida yeelaya inay kulli 14% dusha ka yaqaanina waaridkood dugsiga geeyay laakiin way ku tunteen haday ku tunteen kii aan ku tumana ha ka qabto